hawlaha arlada hadii lagu aamino ummada uu shaqeeyo adeega laga dhigo hawlaha arlada hadii lagu aamino ummada uu shaqeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid hela joogo ay furan idinkuma arkaysid ina adeegto ay furan idinkuma arkaysid ina adeegto min xikaaday eed qadiibo midi waa kii shareholding company-ga midna waa kii concessionska labaduba halkay ku dhamaadaan saacad ka horeysa hadaad akhrido waxa ku qoran this term sheet shall in no way replace or be considered as the shareholders agreement warqadani ma aha loomana qaadan karo agreement-kii shareholders company-ga iyadaa qoran oo saxiixina waa ka ninkii beesayda moodayay inuu faqradda u dambaysa ee saxiixa ka sarreysa akhri inuu kuma inaan qorin waa warqadii la inoo keenay ta kale ee concessionska ka hadlaysa iyana sidaas leeg baa waxay leedahay this term sheet shall in no way replace or be considered as the concessions agreement iyadana ma bedeli karto loomana qaadan karo heshiiskii concessions ku salaysnaayeen labada warqadood ee la inoo keenay ee la leeyahay ansixiya ayaa labaduba leh mana noqon karaan concessionskii agreementkii mana noqon karto shareholders agreementkii macnuhu waxa weeye labadaasiba way maqan yihiin labaduba way maqan yihiin macnaheedu saa weeye waxa jirta executive iyo xukuumaddu heshiis way soo geli karaan heshiis ama shirkad la galayaan ama dawlad la galayaan way soo geli karaan laakiin soo golahan ruqsad kuma baahna imika waxa la inoo keenay oo la ina weydiisanayaa ruqsad heshiiska lagu soo galo ruqsadii baa la leeyahay ogolaada heshiiskii kani ma aha ruqsad baa la inaga qaadanaya imika golaha la leeyahay waxaanu ka rabnaa inoo ogolaataan inaan heshiiskaas soo gallo taana anagu xaq uma lihin golahani xaq wuxuu leeyahay heshiis lagu heshiiyey oo wada saxan oo dhammaystiran oo technicalities-kii dhan u dhan yihiin in golahan la hor keeno goluhuna xaq wuxuu leeyahay inuu ama yeelo ama diido mana gudageli wax ka bedeli maayo horta taa waxaan ka caddaynaya inuu heshiiskii maqan yahay waxaan la inoo keenan heshiis aanay ahayn haddaynu dee saa ku qaadanayna ahla wasaalam nin iyo aakhiradiisa oo wala daaliin ha la yidhaahdo laakiinse dadka waxaan u sheegaynaa heshiiska naftiisa warqadda nafteeda ay ku qoran tahay annaguna kumaanaan qorin inaan loo qaadan karin aanu bedeli karin shareholders agreement-ka iyo inaan loo qaadan karin aanu bedeli karin concession agreement-ka marka labada midna ma aha tan aynu ansixinaynaa waxaanu ansixinaynaa waa ruqsaddii heshiiska lagu geli lahaa sida aynu fahamno ama aynu ku dhiiranno ama aynu ka gaabinno waa taas weeye waayahay ta kale anigoo tixraacaya hadalkii wasiirada way de reportka ka mid tahay warqadda laynoo keenay iyo warbixinta wasiiradu way wada socdaan wax kala harsan ma aha way isdhammaystirayaan wasiiradu waxay inoo sheegeen oo weliba wasiir sacad inoo caddeeyo inoo sheegay shirkadda DB Well inay dalal badan oo caalamka ka shaqeyso wuxuu inoo sheegay miisaaniyadeeda wuxuu inoo sheegay guulahay gaadhay laakiin sameelaha khasaaruhu ka dhacay ee failure-iska ah inoo sheegin inaynu labadaba ogaano waxay ku fashilantay iyo waxay ku guulaysatay waxaynu haynaa mandaqadeennan laba dekedood oo ladoo laga saaray mid waa Yaman midna waa Djibouti golahani xaq wuxuu leeyahay intaanu ansixin inuu ogaado waxa Yaman iyo Djibouti shirkadan looga saaray waxa kale uu xaq u leeyahay Senegal waxa looga soo saaray
macluumaadka in loo keenan gudoomiye codsanayna oo goluhu ka codsanaya sidoo ugu darsan talada ta kale wasiiradu waxa ka dhawaajiyeen inaan khibrad aan loo lahayn heshiisyada noocaas ah oo khibradaasi naga maqan tahay waxay noo cadeeyeen inay shirkado soo kireeyeen shirkad loo international law firm iyo shirkad kale oo aan u qaatay inay ahayn accountancy oo waaweyn labada midna warbixintoodii la inooma keenin xaq baynu u leenahay labada shirkadood waa labada shirkadood ee ka soo taliyay arrintan ee talada ka bixiyay taladii xaq baan u leenahay in lagu soo lifaaqo oo iyana loo keeno waxa kale oo jirta dad xogagaala oo dalkeena u dhashay oo heshiisyada qaar ka soo qayb galay shalay halkaa waxa fadhiyay maareeyay dekada su'aal baa la weydiiyay muxuu saxiix waayay isagu kuma jawaabin wasiir baa ka jawaabay waxaan u baahanay cali xorxor in loo keeno uu ka warramo wuxuu saxiix waayay halkii isagu u lahaa ee u saxiixay maxamed muuse abees wuxuu saxiixay hanoo sheego cali xorxor uu saxiix waayay isagu waa inuu halkaa yimaado gudoomiye xaq baana la isku leeyahay ta kale waxa weeye waxa kaloo jira dhowr shirkadood oo hore inuu heshiis la soo galay raggii shirkadaha heshiiska la soo galay ayaa dalkeena joogo maanta nool waxa kamid ah wasiir xirsi waxa kamid ah maxamed bixi yoonis waxa kamid ah xorxor naftiisa saddexdaa nin ay halkaan loo keeno oo nu su'aalo weydiino oo nu heshiisyada baadhigno ayaan ina xaq u leenahay waa niman muwaadiniina niman Soomaaliland cadow ma aha waa niman Soomaaliland danaynaya xaq bay u leeyihiin xogta hayaan in la ogaado oo golahan ogaado waayahay waan in yar baa hadhay gudoomiye in yar baa hadhay waxa weeye gudoomiye mashaariicda inta la leeg ee malaayiinta dollar ku baxayso hawada lagama soo qabsado sidaan shalay u sheegay daraad u sheegay waxa ka horeysa oo daras iyo diraasad forecast baa ka horeeya waxa ka horeeya income generation kanu filayno stage ku yahay waxa ka horeeya diraasadaas inay sheegto dekada baahidu siday u korayso ganacsiga doonayno qabsano ilaa halkee baynu gaadhaynaa ma ilaa sadar Suudaan baynu ku xisaabtamaynaa ma Rwanda iyo waxnu ku xisaabtamaynaa Burundi miyaynu sii dhaafaynaa infrastructure baa ka dhasha wadooyin baa ka dhasha railway ka dhasha forecasting kaasina meesha uu ka maqan yahay waxa lagu saleeyay mashruucan oo shirkadu ku salaysay oo inuu hor yaala ma jiro ma qaadan karo ma qaadan karo wax duuduuba forecasting ku salaysan tahay waa mandaqa ku sheegaya mandaqa mashruuca inta leeg feasibility study baa la sameeyaa waxa la eega impact environment ku yeelanayo waxa la eega impact ummadda ku yeelanayo waxa la eega impact ganacsigaaga ku yeelanayo waxaynu ku xisaabtamaynaa inaynu ilaa Central Africa dekedan u shaqayso macluumaadkiina ma hayno maxaynu ku salaynaa hadaba DP World baa sidaa keentay oo niman wanaagsan oo daacada oo caraba oo muslina oo la aamini karo ma taasaynu ku salaynaa mise waxaynu ku salaynaa xaqiiqad dhaba oo scientific oo forecast leh oo xilliyaysan oo marxaladii soo martaa taasina meesha ka maqan tahay waxa ka maqan oo kale income generation kun ka doonayno berberi maanta maxay soo saartaa waayahay dekada cusub markay samaysato maxaynu doonaynaa inay soo saarto maxaa ku xiga waxba inoo kordhaya waxba inaga dhacaya waayahay waxa kale oo meesha ka maqan waxa la samaynayaa baa la yidhi berbera port operating company shares baa la kala siiyey shares kaasi waxa la yaalo waxa ku salaysan yihiin ma hayno adeerikaadi adeer wax miyaa ku weydiiyay adiga war miyaa wax ku weydiiyay adiga يا هذا اللي حشون وإذا كان حشون ماي يا عبد القادر واي وحوي saamiyadaasi waxay ku salaysan yihiin oo la inoo keenay ma jirto berberi waxa weeye waa meel muhiim oo loo baahan yahay waa meel cid waliba iman doonto faraacinadii baa timi Greekii baa yimi Turkigii baa yimi Ingiriiskii baa yimi Portugiiskii baa yimi Ruushkii baa yimi Mareykankii baa yimi midna kaba inaan iibin mid walba isaga yimi berbere ilaahay baa ka dhigay waxay tahay
ciidaynu la daba ordaynaa waynu la haddayna ka tagto ciidinoo soo noqon mayso ma jirto berberi mar raba carmal noqon mayso cid guursata la waayi maayo marka ayaynaan dabagelin cidda keliya ee inoo timaadee aynu waxeenna hagaajisanno oo aynu ku xisaabtanno berberi qiimo dheeraada leedahay because of its strategic position ayay hanti ku leedahay oo maalgelinta ku qaadanaysaa ee 40 kareeni meesha yaala iyo misaskan jajaban iyo mashiinadan alxanka ku qaadan mayso sheerka waxay ku qaadanaysaa positionka strategic ilaahay dhigay ayay ku qaadanaysaa marka waxaynu cid weydiinayna ma waa in lagu noqdaa 65% ka no justification whatsoever no justification waxaan ku soo gunaanadayaa waar horumar diidi mayno oo waxaan inay socdaan baanu doonaynaa berberi qarniyo ay jiraysaa qarniyo ayay jiraysaa oo weligeedba jirtay ilaa faraacinadii bay jirtay waanay jiri doontaa inagaga baabi'i mayso qoladan ay naga tagtay waxay naga dhaadhiciyeen wasiiradu hadday qoladan inaga tagto inaynu dhimannay oo meeshu xidhantay war xidhmi mayso China iman doona India iman doonta adduunka dhan baa iman doona berberi waa strategic shidaal baa ku jira oo laga raadinaya Soomaad garan waa haddaynu nabad iyo nabadgelyo sameeyno nidaam sameeyno waana iman lahayna kuwana hor jooga kow taa intaasaan kaga baxaya waxaan ku darayaa war taariikh baa inaga hadhaysa waxa yana su'aal meesha taagan oo isweydiin leh hadda ilmaada reer markaa dhageysta dawlad 8 bilood ama 7 bilood u harsan tahay waqtigeedii ilaahay baan ku dhaariyay waajib tahay inay heshiis 30 sanadooda ay gasho miyay ku qurux badan tahay waayahay waan ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh مسجد الصالح إنه حق إلهي وقد ما لقى يا رب سيد واحد ما تقطع هل قضي من بعد أنا غير بالجلوس شيء شعب غير أنا هل قضي من وحن لا يستجيب وحن عليا وحن عينا صل على حكومتنا سبب هذا له رواني قد عرفوا لي يا بروستيتر وقلت علينا تكتب لما انا قلت ساكت هو اغلبيته كوعدينا ما هيك عد النبوغ آمن ثم أدعوا السفير أدريجا لقادي حولها أرلدا عد النبوغ آمن ثم أدعوا السفير أدريجا لقادي والأولها رنتا السجديسة أيا لها غبا والأولها رنتا السجديسة أيا لها غبا هاي صورا إذيكما أرشيكم بقرها آلي هاي صورا إذيكما أرشيكم قرن سئيكم